يا ويا يمكن مثلا هو بس بيتك قبل السنة ترتيب كونا ويا يمكن قبل السنة هذا ما تيجي بسوي كم بدميه عيارتويجا قبل كسناك لكن وحنا هاي عيارتويجا تيفيجا سومالي سات والله كده daawadayaal halkani waxa weeye hoyga ay ku soo dageen ama aqalka ama guriga ay ku soo dageen xulka kuwooda kubadda cagta kuwooda orodyahanada kuwooda kolayga waxa weeye waa meesha ay ku soo dageen halkan ay u diyaariyeen gudida qabanqaabada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka madaxda yahay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanka mudane Cabdi Saciid Faahiye ولي waxaynu ku guda jirnaa booqashada aanu soo booqanay xulka gobolka Sanaag bidixdeeda waxa taagan yani player ama لاعبينta jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha ma oran karno gobolka Sanaag laakiin waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay لاعبينta ama ciyaaryahanada jamhuuriyadda Soomaaliland وحويه سعيد وحويه سعيد أنا نكبحي مركورة نكسي وربحين سعيد وحويه لاعبيتي سندكي ترتنكي جول دالينتا لبدا كونية صدق ذا يلا لبدا كونية أفرت مركي عقاب سوق تاي وحويه رجع كوجوليستي نيكي كوجوليستي أنا لا هذا ويا سعيد كور كسروا تيجي سومالي سار عبد الملك يو سومالي ساق هذا يردم سمعتي رنتي بوشة هالكن نقص بوقتين إنه سند كان نكوتشنا لبدا كونية كوبي تبانكا يعني السنة كي جدا بيجي عيارها لقبتي عيارجيسل وقبتي عيارها قبل هذا جمهورية الشمال بلا وجود قاعدة لبدا كوني لبدا بلا وجود قاعدة صدق دي واتسو قاعدين فاينل كواتسو قاعدين براين كقاعد لبدا كوني آفرتي فاينل كواتسو قاعدين يدين كقاعدتي كوريا القاعد السنة كان محاك كرة شغطة كرة وينتي عبد الملك دوا سيدا نورت مركي هرينا كوش يبني ورت فلوتي لهم بنوركم كوني runtii haddana doonayno dib waanu ka hadhi lahayn laakiin halka waxaanu go'aansanay inaanu koobka Soomaaliland funutiri ahaanta aanu ka qayb galno aanu bidnillaahi taala dib ku badino waa barcad iyo barmadow laakiin waxaanu ugu talagalnay inaanu koobkan aanu halkan runtii kala noqono aanu ceergaabno daawadayaal wuxuu ahaa Saciid Maxamuud Wasti oo ah ninkii ku guuleystay ama ciyaaryahankii ku guuleystay dhalinta goolasha badan 2003 2004 daawadayaal meel kasta aad joogtaan baa ku soo dhawaada TV-ga Soomaali Sat imika waxay la soconaa xulka gobolka Sanaag
oo soo gaadhay magaalada Burco taariikhdu markay ahayd 29 bisha 2011 halkaas oo uu ka bilaabmi doono tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhda ciyaaraha ee gobolka Sanaag waxa weeye 2002 ama waxay ka soo qayb galeen 4 jeer ee lagu qabtay tartanka magaalada Hargeysa waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland taas oo jeer way ka soo qayb galeen 2002 baa la furay ciyaaraha gobolada ama tartanada gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland 2002 waxay ku hadhay gobolka Sanaag waxay ku hadheen Israa'iilkii ugu horeeyay 2003 baa timi oo ay bedeleen ciyaaraha waxa isku soo hadhay ciyaartii finalka ahayd ama ugu dambeysay gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag waxay ku dhamaatay ciyaartii gabagabada ahayd koobka lagu qaadayay guul yani ay soo haysay magaalada Burco iyo gobolka Togdheer halkaas oo ay ku reebtay Ceerigaabo waxa timi sanadii 2004 waxa isku soo hadhay ciyaartii ugu dambeysay ama finalka ahayd gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer waa Ceerigaabo iyo Burco waxa weeye ciyaartaasi waxay ku dhamaatay hal bay ku dhamaatay waxa lagu daray laba haaf baa lagu daray markii laba haaf lagu daray waa la ismari waayay waxa noqotay in lagu kala hadho rikoodhayaasha waxa ku guuleystay gobolka Sanaag 5-4 waxa timi sanadii 2007 ayay taariikhdii waxa timi sanadii 2007 waxay soo celisay gobolka Ceerigaabo ama gobolka Sanaag waxay soo celiyeen taariikhdii 2002 in lagu reebo Israa'iil reebka hore Cabdi Maalik Muuse Coldoon Somali Sat Burco